بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دواada saaxiibayaal barnaamijkii raadraac oo hadaan oo kale aan hawada idin soo marin jirnay telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaad ka dheehanaysaan. sidoo kalena waxaad nagala socotaan mareegyada aan ku leenahay baraha bulshada. raadraac alaabo waxaan ku soo qaadanaa dhacdooyinka ugu waaweyn ee gudaha dalka ka taagan, gaar ahaan baryahan waxaan ku la fagureynay la dagaalanka kooxda qawaarista ah ee Al-Shabaab oo ayadu dagaalo dhinacyo badan ah ay ku furan yihiin. mowduuceena haddii Allah awoodda sare leh ogolaado caawa aan si gaar ah diiradda ugu saareyno waxa weeyaan bulshada Soomaaliyeed sida ay isaga soo dhex saari karaan garanwaa qofka ah ee ayadu xaafadaha iyo degmooyinka gobolada dalka ku soo beera ee bulshadu aysan garanaynin, kaas oo laga yaabo inuu salka ku hayo in la macaamilka ama kamid ahaanshaha kooxda qawaarista ah ee Al-Shabaab. garanwaa see lagu gartaa tilmaantii madaxweynaha Soomaaliya ee qofkaas garanwaaga ah bulshadu in ay iska soo dhex saaraan ayaan si gaar u falanqeynaynaa oo aan barnaamijka uga hadli doonaa. waxaa marti iigu ah barnaamijka oo stuudiyaha ila fadhiya abwaan aadan sheekh xuseen dabdamiye oo asagu ah abwaan Soomaaliyeed suugaan badan ku cabiray qawaarista iyo dhagarta shacabka Soomaaliyeed ay u maleegayeen iyo dagaalka haatan shacab iyo dawladba ay kula jiraan ee dalka looga xoreynayo. sidoo kale abwaanku wuxuu ka soo shaqeeyay arrimaha amniga iyo horumarinta. barnaamijka inta ayaan ku falanqeyn doonaa ku soo dhawaada saaxiibayaal mar kale iyo barnaamijka raadraac. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka noqon doona ama nagala qayb gali doona dadweynaha Soomaaliyeed qaar ka mid ah kuwaas oo aragtidooda ku cabiray dardar gelinta dagaalka qawaarista lagula jiro iyo haatan sida uu u soconayo, halkii laga soo bilaabay iyo sida uu u soconayo iyo sida loo dhameystiri karo isku ayadoo iskaashiga intaan laga sii badinayo. mar kale ku soo dhawaada barnaamijka raadraac. aynu ku bilaabanay daawadayaal inta aanan u gudbin falanqeynta garanwaa iyo sida bulshadu ay isaga soo dhex saari karto uguna wareejin karto ama ugu wargelin karto hay'adaha amniga, bal aan wada daawano warbixin ka hadlaysa baraarug bulsho iyo kacdoonka looga soo horjeedo in meesha laga saaro dhagarqabayaasha kooxda Al-Shabaab iyadoo la sii dhiirigelinayo dagaalka lagula jiro kooxdaas oo haatan ku sii fidaya meelihii ay ku dhuumaalaysanayeen degmooyin badan oo gobolada dalkana gacantooda laga saaray. Mustafa Maxamed Axmed Warcadeeye ayaynu diyaariyay. dadka Muqdisho garanwaaga gorada uga jiray muddada dheer ayaa gaarsiiyay maxdooyin iyo gumaad ay iilka u galeen geesiyaal iyo haldoorro badan oo ay magaaladan lahayd. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si toosa bulshada magaalada Muqdisho ugu sheegay inay il gaar ah isaga hayaan garanwaaga beegsanaya dadka indhaha u ah bulshada. waxaan ku ballanay dadka caasimada deganow garanwaa iska ilaaliya. ninka aadan aqoonin inaad tira adigu yaad ahayd ama aad hadaadan dheyn xataa aad soo sheegto aad tiraado war nimaanan garanaynaa meeshaan jooga oo la weydiiyo la yiraaho waa sidee adiga maxaad ahayd intaad naga soo booqatay la weydiiyo wax ku jaban ma jiraan. diris xumayn ma ahan maxaa la yiraa garawaa. khawaarijta si ay u naafeeyaan nabadda iyo dawladnimada waxay markasta beegsanayaan qof kasta oo muhiim u ah bulshada, laakiin waxaa markan muuqata in dawlad iyo shacabka magaalada Muqdisho ay soo wada jeesteen sida uu sheegayo gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabo. marka waxaan rabnaa degmooyinka maadaama caawa halkan ay joogaan maantana ay goobjoog ka ahaayeen kulankii meeshaas ka dhacay inaan si dhaba ugu diyaar garowno nimankaas oo wajigii hore oo ay nooga barteen ama
sidii ay rabeen inay noogu dhex noolaadaan inaysan noogu dhex noolaan dagaal aan ku qaadno dagaalkii maanta la iclaamiyana uu noqdo dagaal marnaba aan looga neefin nimankaas oo loogu tago meel kastoo ay joogaan khawaarijtu daris walaal waalid qaraabo iyo asxaabnimo midna ma laha waxaana shacabka magaalada muqdisho ay ballan qaadeen inay iska qabanayaan garanwaaga bahalka ah ee mid ula baxaya shacabka Soomaaliyeed waa ololo ballaaran oo looga hortagaayo sidii looga hortagi lahay nimankan caadaysta dhiigga shacabka iyo dhiigga dadweynaha inay cabaan maanta ayaa u dambaysay daday dilaan markay waayeen xoolay dileen xoolo iyo ari 500 oo neef oo ari ayay xasuuqeen waxay la dagaalamayaan nolosha dadweynaha nolosha shacabka Soomaaliyeed qayb walbay ku nooshahay shacabku waa diideen dhiigooda dab in laga ganacsado dhigmaan deegaamada magaalada muqdisho ka kooban tahay iyo gudoomiyaalka degmooyinka taliyaasha saldhigyada taliyaasha nabad sugidda garabkiina taaganahay habeen iyo maalin shaqeeya aad baa u faraxsanahay shacabku inay baraarugeen oo maanta taagan yihiin inay yiraahdeen khawaarij maya waxaan u sheegayaa nimanka khawaarijta ee cadawga ummadda Soomaaliyeed ee dhiigga shacabka gumaaday ee maanta aan arkaynay xoolihii inay qalqalayaan intay dad ka soo tageen in waqtigooda intaan ku ogyahay shacabka ay naceen ciidanka xooga dalka iyo geesiyaasha shacabka Soomaaliyeed ayaa khawaarijta casharro lama iloobaana ugu dhigay qaar ka mid ah gobolada dalka waxaana haatan ay leeyihiin geed iyo gabaad ay isku qariyaan وماتن yahay wariyahayaga Mustafa Maxamed Axmed Warcadeeye ee tirtiraha guud oo soo warbixintaas ku eegayay baraarug bulsho iyo in uu haatan gaaray in garanwaa dadka laga soo dhex qabto qofka la garan waayana bulshadu ay tilmaamaan isla markaasna ay wax ka weydiiyaan sida warbixinta ku daawateenba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu tilmaamay garanwaa in aad tilmaanto oo aad tiraahdo maxaa ahayd kuma naqaanee daris xumeyn ma ahan oo waxa ay ku kala xumaadaan daris kuma ahan oo soo laabana barnaamijkeena falanqeynta oo caawo uu marti inoogu yahay abwanaadan Sheekh Xuseen dabdamiye oo asagu arrimaha amniga iyo horumarinta ka soo shaqeeyay suugaan badan ku cabiray la dagaalanka khawaarijta kaasoo ay ugu dhiirigelinayo ciidamada iyo bulshada iskaashanaysa ee gobolada dalka ka xoreynaya iyo meelaha ay ku dhumaalaysan jireen khawaarijta al-shabaab marka hore abwaana soo dhawow marka xiga bal hadii aad inoo bayaaniso garan waayaan noqon karaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan salaamayaa bahda warbaahinta qaranka guud ahaan gaar ahaan su'aal macalin Maxamuud oo barnaamijka aan hadda marti u ahay aad ba mahadsan tahay waxaan hay Aadam Sheekh Xuseen Barkhalle oo loo garan og yahay abwaan dabdamiye waxaan ku faraxsanahay inaan SNTV aan marti ku ahay aad uga casuunteen barnaamijkan kala ka hadlo waxaan jeclahay inaan aragtida ku cabiro aqoonta iyo way arnimada aan u leeyahay amniga aan ka soo shaqeeyay barasho ahaan iyo way arnimo ahaan iyo hal abuurkayga sugaaneed oo kabaya marka garanwaa ariga uu madaxweynuhu soo dhigay waxaan isleeyahay waa erigii u habboonaa ee waqti xaadirkan yaani nimanka lagu bartilmaameedsan lagu soo afjari karo garanwaa waxa weeye qof kula jooga oo wuxuu ka shaqeeyaa noqonin qof yaani kula degan guriga degan tahay oo hab dhaqankiisa aan fahansanayn wax badan ka qarsoon yihiin haybtu iyadu waxa la yiri isku aqoonsay tacaaruf baa la yiri moogta marka garanwaagu wuxuu gali karaa shacabka wuxuu gali karaa ciidanka wuxuu gali karaa shaqaalaha dawladda cid walba gali karaa kaliya ma aha garanwaagu qof aadan garanaynin magaciisa iyo mashkiil maaha waxa laga yaabaa kula shaqeynaya inuu wuxuu yahay fahansanayn garanwaagu waxa weeye waa ereyga saxda ah ee madaxweynuhu ugu talagalay barnaamijka inuu soo afjaro nimankaas waxay ku milan yihiin waxay ku milan karaan andhaho qaab dhismeed dawladda wax lagu aamino waa in la helaa marka aniga tusaale ahaan halabuur baan ahay siyaasi hore xilal soo qabteen amniga ka soo shaqeeyay oo maamul goboleed dalka waxaan isuduwa amniga heer gobolaan soo noqday agaasimo guud baan soo noqday wasiir ku-xigeenka soo noqday halabuurna waa marka amniga 4 bilood oo soo dhaafay nimankaasi inay horta gaab tirmeen oo wax yar oo ka harin 4 bilood oo soo dhaafay waxaan uranay suugaan
waxaan soo baahinayay oo soo dhigayay baraha bulshada waxaan deganay magaalada anoo shacab ah oo aan hubaysnayn waan ku nabad galay waxaan ogaaday anigu oo tijaabiyay oo xitaa abwaanada qaarkood sheegay hal abwaan oo kale aan ogahay waxa asaguna saas sameeyay waxaan ogaaday oo tijaabiyay nimankaas inaysan inay nafteen oo nafta ka harin markii 4 bilood oo la soo dhaafay baan garaacay anigu waan ku faraxsanahay ilaahay mahadi weeyaan waa cibaado ilaahay baan ugu dhawaanaynaa dawladnimadu waa adeeg dadweyne lagu adeegayo waa inay shacabka ka timaada hal abuurada waa ka timaada suugaan badan oo ku celiyo barnaamijyada noocaas kula dagaalamay ayaa jirta oo soo bandhigi doona insha Allah waa mahadsan tahay ugu badan suugaanta baraaruga bulshada iyo haatan kacdoonka ka dhanka al-shabaab sidii uu ka soo bilowday marka loo eego maxaad leedahay miro dhal ah oo maanta muuqdo oo la tilmaami karaa oo guulaha laga gaaray dagaalka lagu jiray qawaariijta alxamdulillah ilaahay mahad iskale waa wax muuqda waxa leeyahay sadar muuqdo su'aal madoon waxaan ognahay hadda goboladii dhexe iyo koonfureed qaarkood hirshabelle oo kale in laga dhameeyay oo dawlad goboleed dhan laga tirtirayba galmudugna wax yar inayba ka hareen oo la tirin karo oo la dhihi karo waa degmaha afkeed ama waa laba degmo midba wax yar ka joogan hirshabelle iyo jubbaland sidoo kale markii hadiiba galmudug iyo hirshabelle ay gabaabsi yihiin koonfur galbeed iyo jubbalandna mid walba wax ka bilaabayeen fiican oo meel fiican ay marayso oo haddaan ognahayba inta shabeellada hoose iyo banaadirta u dhaxaysaba already laga howlgalay baaya bakool iyo gaday sidoo kale ay tahay yani meesha kaliya ay kusoo dhuuban karaan waa inay sii baxaan iyo inay muqdisho kusoo laabtaan dhufayska u weyn ay ku dhuuban karaan oo waa caasimadda waa mool marka tallaabo fiican oo goortii ku habbooneed la qaaday goobtii ku habbooneed la qaaday weeye barnaamijka muqdisho shacabku dhib badan bay arkeen waa la xasuuqay waa agoon waxa weeye waa dadkooda lagu laayay marka dadkaas iyaga ayaa u baahan in dawladdu ugu heeliso in la kiciyo oo kacaan oo kalsooni la siiyo waxay noqonaysaa shacabka kalsoonidiisa la hanto si ay arrintan uga shaqeeyaan waxa dhacda sometimes in shacabku uusan report siin karin hay'adaha amniga oo laftigooda laga baqayo badee marka waa in shacabkii kalsooni la siiyaa si ay waxaan isaga soo saaraan oo meesha ay report geenin cid amniga ay u xiriiriyaan la hubiyaa in amniga horta iyagu yihiin amniga cid ka shaqeynaysa waa in amni tahay mid kale waa in la tayeeyo adeega amniga sirdoon iyo tayaba sareeya iyo ciidan ayagu ciidanade aan ciidan ka ahayn ciidanku waxa la rabaa inuu ciidan yahay ciidan aqoon ciidan leh way arrin ciidan leh kalsooni leh daacadnimo aqoon waxa la rabaa daacadnimo iyo aqoon baa la rabaa shaqada inaad taqaan kaliya muhiim ah waxa weeye ciidan ma tahay askar ma tahay shaqada inaad taqaano daacadna ka tahay qabashadeeda class la rabaa marka si barnaamijkan uu mira dhalo garwaaga u soo baxo loo wada shaqeeyo waa in dawladdu hanataa kalsoonida dadweynaha shacabka weyn la hantaa la dhiirigeliyaa ay meelaha la soo xiriirayaan iyo cidda iska soo saarayaan dhan ayagu ay dhiiridaan talaabo fiican waaye waan uga mahadcelinayaa madaxweynaha iyo dawladda waayahay garanwaaga qofka ah ee aanan garan karin markii xaafad aan wada degannahay ka hor intii aanan tilmaan ka bixin oo aan hay'adaha amniga gaarsiinin bulshadu seebay qofkaasi laftirkiisa waraarug isugu siin karaan oo si ay wax uga ogaadaan goobta uu shaqada tago meesha uu ka imaado haddii ay jirto waxbarashadiisa iyo waxa uu ku hawlan yahay qofkan ama dariska la soo noqday ama xaafadda la degan waxa ugu horeeya horta waa deegaanka xamar waxa ka bilaaban oo muqdisho ka jira qofka guri kaleeysanaya degmooyinka hadda shaqaas intii hadda la magacaabay dawladdan dan qaran xukuumaddan shaqeynaysa anigu tii horena waan joogay waxa weeye waxay waa garanaya madaxweyne xasan maxamuud aad baan u kalsoonahay hanaankan uu curiyay iyo ra'iisul wasaare xamse cabdi barre iyo guud ahaanba dawladda federaalka maamulka la dhisay oo gudoomiyaha gobolka hadda hormuud yahay iyo gudoomiyaasha degmooyinka kalsooni badan baan ku qabaa waxaa jira in gurigii la kareynay qofka laga kareynayay degmada loo diro oo la yiraahdo soo xaqiijiya qofkan wuxuu yahay marka information qofkaas magaciisa meeshu ka shaqeeyo all waana sida saxda ah gurigan waa inuu soo galaa qof la soo hubiyay guri kasta waxa degan dadka degan meel koob marka waxaan leeyahay barnaamijka hal sii tayeeyo wuxuu marka in kireystaha loo diro hay'adaha amniga iyo saldhigga inuu iska soo diiwaan geliyo waxay meesha ka saaraysaa waxay meesha ka saaraysaa qof bari ku dili lahaa adan aqoonin firi buu ahaa moogtiga qofkaan iska soo galiyay meesha xiriir galma
gurigan qofka ku soo galayay waa inuu yahay qof la garanayay uusan garan waa ahayn maxaa loo garanayaa magac ahaan waa loo garanayaa hayb ahaan waa loo garanayaa shaqo ahaan waa loo garanayaa amni ahaan waa loo garanayaa oo qof la xaqiijiyay la raad raacay waa inuu yahay qof kastoo si markaas guriga kan leh nabadgelaya kan la degan oo ka kireeyay oo kala nabadgelaya haddii kale waxay noqonaysaa inuu galaafto qofkaasi qofkii guriga lahaa uu galaafanaya guriga uu galaafanaya dadka leedgan uu galaafanaya si marka uu ku galaafan qofka guriga lahow iyo kan la degan oo iska wada hubiyo qofka guriga la soo degay kulliga adika dan idin tahay marka meelaha ay ka bilowdeen ma ahan see marka la isku wada gaarsiin karo oo ficilkaasi laftirkiisa arrintan waxay u baahan tahay wacyigelin badan horta in la sameeyo waxaan dareemayaa anigu ka halabuur ahaan qofkii ugu horreeyay hadda dhiiriday oo barnaamijkan isagu isu diray shanbay ka shaqeynayaan ahay dawladdan waxa laga rabaa koo horta dadka hawlaha muhiimka wacyigelin badan la sameeyo oo abwaanada iyo halabuurada iyo hobolada iyaga la kacsho oo suugaanta soo saaraan dadkii lala hadlo baa warbaahintiisa oo kale hawlgeliyo garanaysaa shacabkana ma raashay in kalsoonida la abuuro muhiim marka arrimahaas caawinaya in la isugu tago oo maartay garanwaagi soo baxay kacdoonka shacabka maartay ay uga soo horjeedaan argagixisada ficil say ugu bedeli karaan oo ay ciidanka ayagu ama baadi goobaya kan dhuumaalaysanaya ama dirirta la horjooga gacan ugu noqon karaan ama u garab istaagi karaan waxaa jira gabay leeyahay halgan qaran oo aan rabay in ummadda Soomaaliyeed u sheego gabay dheer waaye gabaygaas anigu qorsheyntaan bartay istiraatiijiyad hawlgal buu gabi ahaan ku saleysan yahay gabigaasi yani shaqada hadda socoto tilmaamaya sharxaya ilaa duurka miyiga marka la tago reemiyu si ula dagaalamayaan baa xataa sheegaya iyo ciidankii wuxuu isku xirayaan kaasaan ku sharxi doonaa intii aanan suugaanta u gudbin suugaanta waa imaan oo doonaa marka waxa waaye kacdoonka shacabku waxa weeye waa tallaabo wanaagsan waaye waan sheegay markii hadalkii horaan ku sheegay in shacabka la dhiirigeliyo inay muhiim tahay shacabku iyaga xanuunsan iyaga naafaa kii dhaawac ahaaba ku jira qarx ay ku dhaawaceen kii ay walaalihiis oo dhan dileen baa ku jira aabihiis hooyadiis walaalihiis dileen baa ku jira kii xaaskiisa iyo carruurtiisa ay leeyihiin oo keligiis taagan baa jooga waxaasoo dhan xanuun waxay dareemayaan cadowgii laayay kuwaasaa ku filan dhiirigeli la aruursho kuwa ay layn doonaan u soo socdaan ilaa qarx arxan laawo weeye kuwa ay qarxin doonaan laftirkooda iyagana waxa weeye qarx sugaha ayaa iyaguna u baahan hiil u baahan marka kulligan qarx ku xukumanay hadayna iska qabanin cabsi gelin ayaa jirtay dadku waxay cabsi badan ka qabi jireen haddii maanta aad ka hadasho berri ama lagu dilaa أنا بصراحة أنا أفر بلود بهاللية وحلوة بكسن كرا أنا بصراحة تذكر إيه غانا الموت وأنت بدي مقال أحمر بنشوجا واحد كرسوني كوقاتن براه بالشوا الله سلطان شن بلود بنقراعي نمك سبين أركيني واحد دليل واحد زورة زمين إثنين مسوين واحد بصراحة تنمك يا ما هذا حوجا مهربا دي هالشيء كرتا يكرتي إلهي الثلاث ساعات وحنا هو شيء عباده إلهي بنقول وانينا كرسوني يكرتي وصل الربا ها way marka fariinta laftirkeeda qofka arkaya oo maaragtay qofkaan garawaaga ah oo ku gudbinayo laftirkeedu qofkii ka hor inuu wareysto bay noqon kartaa mise in tuusan warsanin in uu la wadaago hay'adaha amniga saas waaye marka ugu horeysa ee uu qofka arko ee uu wax ka garan waayo haba yaraatee hadduu doonto inuu ka shakiyo baa noqdo kaliya kasoo qaad qof aad taqaaniba weeyba oo taqaanaa moogti garan waxaan noqon karaa qof aad shaqadiisa xataa taqaanid magaciisana taqaanid haybtiisana taqaanid markii horena aad kalsooni ku qabtay laakiin waxaad kaga shakiyaad ku aragtay waxba yeeli maysi si qofka loo hubiyo marka waa inaad jirto qofkaas aan arkay waxaasaan kaga shakiyay waxa adiga dareen ku gelinayay kaliya marka maxaa loo baahanaya in qofka la xaqiijiyo kaliya sababtoo hadii ilahay ilaa hadda nimankan waxay isticmaalaan yani qaab dhismeedyadii bulshada matalayaasha dawliga iyo matalayaasha aan dawliga ahayn bay ku milan yihiin ما قرن كراو سيد لولي بيهدي سادي دحبوديان موقت waxaa rabaa marka qofkan waa taqaanay moogta shaqadiisa taqaanay hebelahan baa taqaanay wax walba taqaanay laakiin wax dareen ku geliya ku aragtay waa ribood garaysa qofka ceeb kuma arag laakiin wax dareen geliyan ku arkay waa la hubinaya kaliya dawladda hay'adu ama wala xiriirisa laakiin waxa shardiya qofkaas xiriirka sameynaya cidda uu xiriirka la sameeyay booliska iyo saldhiga iyo in lagu kalsoo inuu eeg yani qofkan
riboodka soo bixinaya shacabka markii hore waa sheegay haddaan qofkan shacabka riboodka soo bixinaya uusan kalsooni qabinin oo booliska uu riboodka siin uusan kalsooni ka qabinin oo aan ayagu dhibaateyn doonin ya haddii ayagu dadka dhan barnaamij ka shaqeynaya waxaan rabaa marka in dadka amniga loo diray horta amni noqdaan inagu oo dadka shacabka ah ay dhibaato gaarsiinin oo aysan ayagu argagixisada ahayn dee qofka amniga ka shaqeeyo amni noqdaan rabaa markaas dadka dhan soo kacaya qof aan necbayn nimanka ma jiro way abwaan aad u mahadsan tahay qofka garan waaga ah ee qof ama tilmaama ama xogo weydiintooda ugu yimaado waa ku garan waayey niyo maxaa ahayd halkees ka shaqeysaa loogu yimaado selftirkiisu caafimaad ahaan isku tilmaami karaa oo uu uga falcelin karaa ama asigoon dhibaato iyo argagax iyo waxba dareemin oo cadeyn karaa waxa uu yahay su'aal wanaagsan weeyaan horta ka Soomaali ahaan yani baraarugeena iyo bisaalkeena dawladnimo waa da'yariye waxaan dhihi karaa wax qarni ka yar baynu dawladnahay ama aan ka badnayn 100 sano marka dawladnimadeenu way koraysaa dadkeenu uma bisla dawladnimada uma bisla wacyigelin badan bay u baahan yihiin qofkan waxa inuu dareemo waayo cudur qaada si kale u arko ama uu qabiil ka dhiga adiga marka waxa kula hadashay waa bisayl yari dawladeed iyo baraarug marka waxay u baahan tahay wacyigelin waqti badan arrinta laga sameeyo oo la yiraahdo qofkii su'aashaas la weydiiyo cudur ha u arkin amnigeena ku jira adiga amnigeena ku jira garanaysaa marka iyadoo waxa loo dhiminin baa si aqliyaysan qof loogu sheegayaa amniga midnaanta la siinaya isaga amnigiisa amniga dadka midnaanta la siinaya waxa uu dareemay qofku waxa ka muhiimsan in badal badbaadinaya ka muhiimsan marka taa weyn wacyigelin badan laga sameeyaa midnaanta la siiya amniga waatay daawadayaal waxaan ku jirnaa ama daawanaysaan barnaamijka raadraac haddii haatan ay ugu soo biirtay waxaana uga hadlaynaa barnaamijka baraarug bulsho iyo garanwaaga qofka ah sida bulshadu ay isaga soo saari karto ama ugu wargelin karto hay'adaha amniga si loo ogaado warbixinta qofkaas garanwaaga ah ee bulshada dhexdeeda ku dhex jira waan u soo laabanaynaa falanqeynteena dooda oo uu marti noogu yahay abwaan aadan sheekh xuseen dabdamiye oo asagu ka soo shaqeeyay arrimaha amniga iyo horumarinta bal markan aan wada daawano qaar ka mid ah bulshooyinka ku kala dhaqan magaalooyinka Garowe iyo Beledweyne oo ka soo aragti dhiibtay dardargelinta dagaalka lagula jiro qawaarijta asagu haatan si fiican u bilowday meel waxana maraya iyo sida ay u arkaan qof kasta kaalin uu uga qaadan karo la dagaalanka argagixisada qawaarijta ee al-shabaab oo haatan laga xoreeyay qaar ka mid ah meelihii ugu badnaa ee ay ku dhuumaaleysan jireen walina lagu sii daba jiro waa kuwan qaar ka mid ah dadka Garowe iyo Beledweyne oo aan mikrofoonka la dhex marnay هو ما هذلنا شعب كي دولة رنتي قولة دحى الصومالية iyo shabeellaha dhexe iyo gobolka Hiiraan runtii hawlgalkii laga qabtay oo dadkii dibta ku hayay dalkan argixisada ahaa oo runtii aafeeyay jiritaanka iyo wada socodka wada noolashada Soomaaliyeed runtii dawladda maanta jidda iyo shacabka deegaanada deegaan buu ma hadalnaa runtii waa garab taaganahay waa la macmaanahay runtii Puntland dagaal badan bixi soo jiray ilaa 2010kii oo argixisada iyo culisada dalka jira noocyada badan isugu jira Daacish noqoto shabaab ha noqoto runtii waa la qabnaa ummadda Soomaaliyeed in cirib tiro cadawga dadka afeeyay oo dawladnimadii dib ku ah caqabad ku ah nolosha ummadana dhibaatay runtii madaxweynaha iyo xukuumaddiisa waliyaashiisa baarlamaanka runtii aan aad uga mahad celinayo shaqada hadda ay hayaan oo goobaha fulinta ah xildhibaanada markasta taagan oo libisan aan arkayo waxay tusaysaa inay dhamaatay waqtigii argixisada shaqayn lahayd waxa ay muuqataa in ummadda Soomaaliyeed ay heshay layr qabow iyo naxariis iyo nolol ay aayeen 30 sanadood ilaahay waxaan ka baryayaa in ilaahay arrinta iyo aragtida aan maanta noo muuqato ilaahay inuu quweeyo in midnimada Soomaaliyeed ilaahay adkeeyo حقيقيا أو مركز تاريخ الدين الأخرى أو ما يلعب الرسمية إذا كان خوارجته وحيصور برودين إلى مركي علي بن أبي طالب يستوصل معاوية بن أبي سفيان قرآن اللي بقولها هاي وبحضي
خوارجتay ka soo bilaabatay waxayna go'aan ku gaareen inay dilaan cali mucaawiya iyo nimankii galgalyada u ahaa oo ay muuse al-ashcari iyo cumar bin caas waxay la heleen cali bin abi taalib waxaa badbaaday mucaawiya bin abi sufyaan oo dhaawac yar gaaray waxaa isna maalin habeenkaa salaada muslimiinta aan tujin cumar bin caas oo dhanka qaahiro joogay ilaa maalintaa laga soo bilaabo ilaa maanta waxay baabi'inayeen caalamka islaamka midab kasta iyo magac kastaba ha yeesheen waxaana hore u sii sheegay rasuulka salawaatullaahi calayhi wasalaam waxayna ku aftirsanayaan ninkan yidhaahdo dulqaysara oo iyo rasuulka ma cadaalad sameeyo marka ninka iyo rasuulka ma cadaalad sameeyo waxaan tafiirtiisii maanta laga sugaa waa waxaan waxba aan ahayn soomaaliya markaan usoo noqono ilaa suu u bilowday dagaalka sokeeye soomaaliya geestooda wax ka xasuuqayeen maray boosaaso xasuuqaan maray garow xasuuqaan maray xamar xasuuqaan maray gada xasuuqaan 1995kii meelahaas ay ahayd iyo lugo iyo aagaas oo dhan gobolka gado baaya hadda fara badan bay ku hayaan waa lagula dagaalamaya marka waxaan moodaa waa arrin loo soo diray soomaaliya inaysan wax tilaabaa qaadin dadka la dagaalamaya waa dad soomaaliyeed oo rowjadna ku raadsanaya waxaa soomaalidu ku maamahdaa qof la aasaya ugu dambeeyey waxay idhahdeen ninka hadda lasii wado arrintay ka sameeyeen qabno oo gawaarida ay ku gubeen ka soo baxay beledweyne baa tusaale soomaaliya ugu filan waxaa ku jiray gabdho uurle oo bilmakiibe ah aan loo dhowaan karin waxaa ku jirtay odayaal shayba waxaa ku jiray culumo gawaarida dadkiiba dabba isla qabsiiyeen xataa yuhuud saalaan ma samayn karto in gabar uurle iyo cunug hal sanan jiray aad daba qabasiisid waa nin aad u culus dadka maanta la halgamayaana inay ka xoreeyaan soomaaliya waa arrin xaqa waxaa kaloo badanaa la yidhahdaa dowladdu waa tan istira markaa laakiin dowladda runtii waa shacabka marka shacabkaa loo baahanya waxaa ka qabtaan arrintan meel uga soo wada jeestaan nimanka khawaarijtaana la iska sifeeyo meel kastoo soomaaliya ay ka joogaanba hanqaltaagooduna mana yara dhowr iyo 10 sano ama 20 sano ku dhow bay hadba meel ka galayaan dalka laakiin waxay ku xiran tahay xoogga dalka soomaaliya oo awood yeesha oo ayagu hanan karaa dhulka ay ku fadhiyaan oo dhan maantana taa waa wadaa waxaana guri example u ah madaxweynaha hadda xilka haya xasan sheekh maxamuud in been laga faafiyo maahan intii toortiisa waa la halgamayaa waa xasuuqayaa waa uu ceel tirayaa waxaa la midoo tusaale soo qaadan karaa gobolka hiiraan khaasatan magaalada beledweyne soomaalida ku nool way iska xoreeyaan maaha bannaankay iska dhigeen maantana waxaa laga yaabaa dhuumasho inay beledweyne kusoo galaan maahana toos uma imaan karaan dee nin dhuumanayaan waa dhuuman karaayo dadkii waa soomaali waa isku af waa isku luqad waa isku diin marka maaha nin etoobiyada araayin sida waa nin soomaaliya cadowgo ku dhagaraya waxa aad qabanaysaa ama maba dareemi karida waxaa u malaysaa inuu adiga koo dhashay ninkaan la dhashay ninka isku midab baa tihiin isku cod baa tihiin isku luqad baa tihiin isku diin baa tihiin marka soo saaridiisaa kugu adkaanaysaa laakiin hadduu taajuud shisheeye yahay wax yar baa ku aqaba kadhaa marka maanta hiiraan baa xora waxaa ka mida jowhar ayana sidoo kale waa iska sifaysay gobollo badan oo dalka ah baa laga sifeeyey insha allah waan ku socon doontaa waa lagu ceebtirayaa biidnillaahi kariim waa kii ina gumaystay waa kii ina kala googooyey waa kii dalkeenna 5 qof ka dhigay isagii baa maskaxiyan weli inoo taliya nin kasta oo madaxweyne noqda nin kasta oo maamul goboleed loo dhiibo nin kasta oo maxkamad loo dhiibo nin kasta oo looyar laga dhigo ma uu caddayn karo gaalku inuu cadowgaa yahay nin caddayn karo oran kara reer galbeed waa cadowgeenu waa ku ina gumaystay ma jiro sidaa darteed kuwanay soo samaysteen oo ay soo beereen oo halkan hadda ku jira oo shabaabka sheeganaya war waxa ay isku reebinina oo waxa soo idin ku hayn xabadda nabadgelno tilmaado nabadgelnaba annagana rogay hadeer oo aanu ka maaranahay hadhowdii baad ka qoomayn doontaan waxa soo idin ku raasuqi oo idin ku hayo oo tolsanina oo ilmahooda ha soo dhawaysanina oo naagtooda ha soo dhawaysanina wabillahi tawfiiq wa in salaama ya bismillahir rahmanir rahim magacay waa maxkamada kuna sugan magaalada beledweyne intii waxaan soo dhaweynayaa madaxweynaha qaranka fikirka ah dadka xagjirka ama isqarxinaya ama ummadda hukumaaday inaan wax guri laga karin hadda koona hore waa loo dhahay haddana madaxweynaha dhahay marka waxaan rabnaa madaxweynaha hadalkiisu waa hadal dikrateew waa inuu dhaqan galaa anaga haddaanan bulshada ku dhaqan
beledweyne hadalkaas waan soo dhaweynay waa hadal badbaadinaya bulshada kale iyo qaybaheeda kala duwan haddii laga karayn qofka dhagarqabaha oo guri laga karayn oo meeluu ku nasto waayo ama meeluu tago u waayo waxaa wadanka way ka badqabaan marka waxaan dhihi lahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa mahadsan tahay runtii waxaan leeyahay arrintaasi inay shacabkan ku baraarugaan soo sheegaan qof aan la garanayn in guri aan laga karayn marka taas waa amniga kamid tahay badbaadada bulshada kamid tahay waana soo dhaweynaa arrinkaasi waxaan leenahay qaar ka mid ah bulshooyinka ku kala dhaqan magaalooyinka Garowe iyo Beledweyne oo ka hadlayay aragtidooda ku aadan dagaalka lagula jiro khawaarijta ay ahaayeen raadraac ayaadna ku daawanaysaan aan dib ugu soo laabano barnaamijkeena falanqaynta iyo abwaan aadan sheekh xuseen dabdamiye oo caawa marti noogu ah barnaamijka abwaane soo dhawow waa daawanaysay aragtidii iyo maaragtay afkaartii dadku ay dareenkooda ku cabirayeen dagaalkan khawaarijta tan iyo markii uu bilowday seeba dadka u arkayeen banaanka ka jooga in ay iskaashi shacabkii la sameeyaan ciidamadii qaarkood hubka qaataan oo degmooyinka iyo meelihii al-shabaab ay haysteen wax ka furanayaan oo ay ilaa hadda u taagan yihiin su'aal wanaagsan weeye walahi de sadar muuqda waa su'aal mudoon weeye dadku baahi weyn bay qabeen oo dad la xasuuqayay 4 October wixii dhacay naxdin lagu tilmaamay waxaan ugu hadda bixin aan hadda dhaho anigu hadda dawladda Soomaaliya dadku sameeyeen ma aqaan wixii 4 October dhaco kale bixin hadda aan sheegan maayo naxdin ma dhihi karo marka dadkani sida dadkan hadda hadlay aqoon-yahanada sheegayeen waa dad diin lahayn oo maartay suugaantan ku cabiri baan ku sheegi doonaa marka dadku dad baahi qabay oo mana ya talaabo la qaado oo mana bay ahaayeen waana mahadsan yahay madaxweyne xasan maxamuud Allah barakeeyo sida quruxda badan uga howlgalay si dardar leh ayay shaqadaasi ku bilaabatay meel beed wadii waa la boobay marka kaliya waa intaasoo maaragtay aan la daalin taanisna aan la siinin dadku dareen fiican bay qabaan way kaceen in ay dareen fiican qabaan kaceen waxaad ku ogaanaysaa sida durba looga xoreeyay gobolladan meeqa qaad hadda Hirshabeelle oo dhan waxaan de 2 bilood 3 bilood ka badan Soomaa kadibna waa gabaabsi gobolladii maxaan ku radaa Jubbaland Hirshabeelle waa sidoo dhaandhaho koonfur galbeed iyo Jubbaland waa sidoo kale waay marka gobolka Banaadir shacabkiisu kacdoonka hadda gobolka Banaadir ay dadka shacabkiisu sameeyay waa talaabo wanaagsan waxaan u arkaa in sidaas kuwa ka horeeyo kale ay u muuqdeen ay gobolka Banaadir ka dardar badan maadaama dhimashadii qarax u badnaa xamar ayagu way ka baahi badnaayeen way ka xanuun badnaayeen way ka dhib badnaayeen marka dadkii dhibka u badnaa dareemayay xanuunka u badnaa dareemayay waxaan isleeyahay sida gobolada kaleeto hawlgalku uga dhacay si ka fudud beerey Muqdisho insha Allah taala iska soo afjari doona khawaarijta oo iska soo dhaxsaari doona waa arki doonaa waliba waan sii sheegaya hadda waayahay insha Allah abwaane marko qofka aan dagaalka ku jirin ee aan furin aadi karin khawaarijta dagaalkeeda qayb uga noqon karaa asaga oo gurigiisa jooga suuqeeda ka ganacsanayo qofku dadkiisa ku dhex jiro iska cibaadaysanayo see qayb uga noqon karaa qofka shacabka ah waa inuu reportka iyo informationka soo bixiya waan sheegay waa intaa waxaan waa in la dhiirigeliyaa in shacabka kalsoonidiisa la hanto xogta ku jirta lala soo baxo qofku ku soo dhiirado inuu reportka geeyo goobaha amniga iyo oo tan labaad oo ah in wacyigelin badan la sameeyo dadka lagu wacyigelin badan media laga sameeyo yaa wacyigelin sameynaya marka wacyigelinta waxa sameynaya hal abuurka waa sheegay suugaanta dadka kicisa abwaanada iyo hobladu waa inay kacaan culimadu waa inay ka hadashaa oo dadkan wax lagu shubay ka shubaan garanaysa dadkan waxa la aaminsi waxaas lagu shubay waa in laga shubaa oo culimadu aad u hadashaa waqti la siiyaa suugaanyahanadu waa inay hadlaan oo dadka kiciyaan dhiirigeliyaan ayagu moogta dadka banaanka jooga moogta qof kasta oo shacaban oo meel ku joogana waa inuu report gareeyaa kii guri degan ama kiraalahana waa inuu gurigiisa wax soo galay iska hubiyaa oo report gareeyaa haddii kale isaga laftiisa uu galaafanaya way saa loo sheegay looga digaaleeyahay haddii aad garan waa guri ka kareyso ya adiga ku galaafanaya kabanaha ka istaagaya iyo mid uu dameyso ah in wada shaqeynta shacabka iyo hay'adaha amniga maartay la xoojiyo shacabkana la kalsooni geliyo hay'adaha amnigana dadka yaani maadaama aan sheegnay waxaan inay meel ku jiraan ya
meelaha mudnaanta gaarka in la siiyo loo baahan waxay tahay dadka amniga nooga shaqeynaya ee shaqadan qabanaya matoorka u ah iyagu in amni yihiin in la hubiyo mar walba taas ku celinaya in amni yihiin oo iyaga horta garmaagu iyaga la dhexbaaro ha taas weeyaa abwaan dabdamiye dagaalka khawaarijta lagula jiro tan iyo markii dib u bilowday dib u xoreentana ay bilaabatay iyo gobolada in laga saaro iyo meelaha ay ku dhuumaaleysanayeen al-shabaab gabaya ka tirisay bal wax nooga sheeg gabayadii aad ciidanka iyo ku dhiirigelinaysay khawaarijta iyo dhagardaamadoodana aad dadku ugu sheegaysay masha Allah aad waa mahadsan tahay suugaan badan baa ka tiriyay matri koobi kara hadda waxaan is leeyahay dhowr iyo 10 hadda gabay ayaa samaysan gabaydaas waxaan jeclahay way dheer yihiin waxay qaadanayaan saacado qaarkood si taxana inaad soo deysaan marjeeyay insha Allah taala gabay waxa leeyahay halkan qaran istiraatiijiyadan ayuu sharxaya gabay waxa leeyahay ciidan qaran ciidanku dhiirigelinaya waxay mudan yihiin buu sheegaya shaqadii noo hayaan buu sheegaya waxay yaani marka yaani deesay u dhiiriyaan iyaguna marka waxaan rabaa inaad tuucir ka soo qaato gabayga halkan qaran khawaarij tilmaamaya khawaarij habaar bay qabtaa waana la hubaaye hungura halbeeg waa sidii haada oo kale hay heshiis dunida duul ay yihiin haybna laga waaye halka mudalkeeni galay iyo hawlgal qarameede halka mudalkeeni galay iyo hawlgal qarameede hal abuurado soo baxa horiye suugaanta hawal iyo heesa kaca heegan wada qaata haleey hal dooro istaag haaba qalabkaaga hantida dadweyne hura hagar la'aan dhiiba hanaan bay aqaana ku filan himiladeennii horeeyo hareeraha kamara horin yar weeyaane haraadiga aan baacsano iyo horka fiigiisa hadhow shaqada inaan hurin haatan qaban waa mahadsan tahay wuxuu ka mid ahaa halkan garmo ka mid gabaygaasi waana mid dareen gabaygaasi shacabka ayuu la hadlayaa ilaa iyo miyiga marka la tago duurka in aan nimanka fursad la siinin hadii fursad helaan fursad yar hadday helaan oo barnaamijkaasi hakad galo dawladdu istiraatiijiyada iyada kulli maamulaysa aniga laakiin aqoonta amni aan leeyahay waxay tahay nimanka aan jaanis la siinin waxba habsaamay iyo waxba la waayay ma leh hawlgalku ma leh waa inaan jaanis ninka la siinin cagta weyn loo saaraa oo sidii uu ku bilowday uu ku socdaa loogu dhamay hadii fursad nimankaas helaan waa jaanis bay helayaan moogta taan qaraxya aasayaan shacabkii bay waxaan jabayaan oo duurkan sheegin dhahayaan kanaysa waa inaan raashin loo karinin reermiga u karinin oo aan gogol siinin oo isan geed meel kasta ku dhuumaaleysan godob waa laga saaraa waa laga harin hawlgalkuna uu daba socda shaqada waa inay istaageen hadday istaagto waa bas wey waayahay garan waa aragnay gabaygaas waxaad ku dhiirigelinaysa ciidanka dagaalka ku jira wuxuuna ahaa mid aad khawaarijta iyo lagartooda uga hadlaysay maxaa kaloo suugaanhood ka cabirtay dagaalka suugaanta kale aan ku cabiray mid walba tusaale badnay waqtigaas ka yar ku soo qaadanaya waxaa jira gabay leeyahay magaciisa guddoon waxaa leeyahay mala xadiisku wuxuu ahaa mala yashkuru naas la yashkurullah qofka dadka u mahad celinin ilaahayna u mahad celiyo waxaan rabaa inuu mahad celiyo madaxweyne xasan maxamuud halgamaa weeye haliyey weeye hogaamiye buuxa weeye shaqada sida uu u bilaabay sida uu furinta isu geeyay ciidanku garab istaagay aad baan farxay deedna waxaan uri gabay leeyahay guddoon gabaygaas waxaan u talagalay koow horta asaga in aan xuso uu mudan yahay la xuso iyo in yani hawlgalka uu ballan qaaday iyo barta uu tagay ciidankii qoryahooda uu hortaagay marag doonta moogta taasoo kaleeto qof isdhataraya maahane marag doonta wey marka gabaygaas waxa uu leeyahay wuxuu la hadlayaa madaxweynaha ayuu maaragtay galgiisa ka hadlayaa wuxuu leeyahay goobta uu ku hoydiyey nimaan guriga dhaafaynin geeryaalo aan soconinba geesi dhahayaane wiilka ka geesiya ka geesgaaray dunidoo dhan ee gogosha nabeed u dhigay gaal iyo islaamba geyigaba inuu maamulaan goornu sugaynaaye xasano guddoonkaan rabnay wiil goobaa tahaye geedigiiyo hayaankaad wadan garab ka haynaaye gaadiidkaagu yaanu marqura guuxa kala joojin aad buu u mahadsan yahay abwaana aadan sheekh xuseen dabdamiye oo barnaamijka falanqeynta raadraac marti noogu ah sugaantaas dareenkiisa uu siiyey ee uu ku cabiraayo dagaalka lagula jiro khawaarijta iyo dardargelintiisa
iyo maaragtay dhiirigelinta shacabkaba iyo madaxweynahaba haddii alla awoodo sare leh ogolaado barnaamijyadeena dambe ayaad kaga bogan doontaan si gaarana abwaanku waxa uu barnaamijkaasi ama sugaantaasi kusoo muujin doonaa muuqaalo gaar ah kuwaasoo aan idin tabin doono barnaamijkeenii raadraac falanqayntiisa caawa aan kaga hadalnay ahmiyadda uu leeyahay garanwaaga iyo bulshada in laga soo dhex qabto iyo sida bulshadu ay isaga tilmaami karto intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa aad baan ugu mahadcelinayaa abwaan aadan dabdamiye oo barnaamijka marti noogu ahaa saaxiibada barnaamijka soo saaristiisa iyo farsamadiisaba gacan iga siiya ayaan u mahadcelinayaa barnaamijkii oo aan idiin soo saaray anigoo isugu hel macalin maxamuud halkan idinkaga tabinaya intaas kusoo afmeeraya waqtigu inoo saamaxay waa farsamadii nasteexo dhammaanteen isku duuban tan iyo intaan barnaamijkan lamida saaxiibeen ku kulmeyno waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh insha allah